السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما قيارتي يوتيوب aan salamay cashirkeeni toddobaad ee Camtasia Studio ayaan gelaynaa waxaana ku saabsan yahay qaybta ka saaridda noise-ka iyo volume-ka kasoo hadalnay haddana waxaan ka hadlaynaa qaybta noise-ka inaan ka saarto codkaaga hawada iyo ama tashwiishka kaasoo isticmaalaysid Camtasia Studio 8 marka aan bilowno cashirkeeni toddobaad ee Camtasia Studio 8 Welcome to my YouTube channel. marka Camtasia Studio ay soo furo marka waxaan tusaa qaybta hore waxaan uga hadlanay qaybta volume-ka ayaan uga hadlanay dheereynta gaabinta iyo codkaaga sida uu kala jari lahayd markan waxaan ka hadlaynaa qaybta labaad ee audio ku saabsaneed oo ugu muhiimsan qaybta hore tan kasii muhiimsan tan waxay ku muhiimsan waxay tahay dhegeyso videogan markaas ayaad ogaanaysaa videogan markaan duubay waxa sameynaysaa hore saan u sheegay intaad videoga duubin 5 second oo kale ayaad dhaafaysaa si hadda videoga markaan aamusnay fiiri ilaa 1 second iyo xoogaa ayaa aamusnay laakiin markaa aamusid waxay ku sameeyeen noise-kaaga inaad ogaatid dhegeyso marka videogan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan marka inta ugu horreya waxaa ujeedaa in aad maqlaysid guuxa taasna waxay ku sheegaysaa systemka computerka iyo guriga meesha ku duubaysid sababtoo ah meel professional ma ahan marka waxaa laga qol guriga noise oo sameynaa computerkana marwaxadiisana sidoo kale waxaa laga yaabaa laptop iyo nooca isticmaalaysidba markastaba wuxuu sameynaa noise waxa loo isticmaalaa oo sameynaan ka wadaa marka sidee u saaraysa noisekaas marka mar labaad dhegeyso assalaamu calaykum marka waan ujeedaa waa maqashay waxaad tegaysaa audio ayaa tegeen kadibna si automatic hadda jeeg intu saarno kana usoo laabana dhimanaan dhegeysa marka saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan qiyaarta youtube aan salamay cashirkan wuxuu ku saabsan yahay sida marka haddana waxaan soo bilaabaa ayada oo lahaynin laga saarin dhegeyso marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan qiyaarta youtube aan salamay cashirkan wuxuu ku saabsan yahay codka waa clear laakiin background noise ayuu leeyahay marka sidee ugu saaraysaa automatic markaad saartid si automatic ayuu ugu saaraa Camtasia Studio qaybta kalena qaybtan si automatic ayay ugu saaraysaa qaybtan marka waxaan dooranaynaa labaad sidee videoga meel cayiman ayaa u tusi lahayd adile meeshan ayaa noise ka bilaabanay meeshan u tilmaamtid automatic ka qaad kadib selection saar kadibna manual and noise trading ka dooro isla markii sidaas ayuu si automatic u saaray haddii aad dhegeysatid assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan qiyaarta youtube aan salamay cashirkan wuxuu ku saabsan yahay saas haddaan waxaa ogaanaysaa microphone-ka isticmaalayo computerka kuma xirno waa microphone banaanka taasna waxay ku sameynaysaa computerka asaasa tahayna noise-ka uu sameynaa waxa ani computer system weyn isticmaala laptop kama isticmaalo computer weyn hadda isticmaalo computerka weyn waxaan isticmaalaa RAM-kiisa ziyaada markastaba waxaan isticmaalaa surcadiisa ziyaada speedkiisaan ka wadaa markii videogii aan ku sameeyey noise aan ka saaray waxa ku xigta meeshan haddii videoga markuu sound kor tago kale oo clipping sameynayo kale haddii aad dhahdo remove clipping macnaha wuxuu sameynaa meelihii ayuu ka jaraa markaad videoga oo sidiisa yahay markaan gadaal usoo celiyo kadib cashirkan wuxuu ku saabsan yahay sidaan u tijaabin lahayn codkeena Adobe Audition kaasoo haddii aan saaro remove click iyo remove clipping Audition kalkaasaan saaro isticmaalayno feel sahlan haddii markaas remove noise-ka markaa ka saartid kanaan ka qaad markaa ka saartid haddii aartid intii aa u baahan tahay adaa ku darsan kartid haddii aan ku daro hadda ziyaado kaasoo isticmaalayno isbedelaa feel sahlan feel menu fur marka dambeyso waxaa sii yaraanayo background noise-ka aad ugu yaraana sababta waxaa ogaanaysaa background noise-ku qofku wuxuu sameynaa videoga markuu daawanayo badanaa waxaa arkaysaa video qaal markaa daawanaysid waxaa ku badan cod hawaa ku badan hawada sida furanta sida mukeef shidan oo kale marka shalay midaan u malaynaa inaad wax badan fahmi doontaan laakiin ana professional me horaan u sheegay waxaan jeclahay waxaan aqoon u leeyahay Camtasia Studio intaan practice ku sameynayay aan aad u isticmaalayay tijaabi ani qof inta tagay bare ma jiro laakiin markasta isticmaalka badisid
iyo mar kasta computerka aad videogan computation wax ku diyaarinaysid ama programka u badan tahaba waxaad ogaanaysaa mar ka dambeysaba khibrada ku siyaadayso haddii aad tagtid kan aan jeeg ka qaadno volume-ka wuxuu ku siyaadinaa markaad tagtid kan enable ka qaadno markaad tagtid kan wuxuu ku siyaadinaa laba videoyo badan ayaad isticmaashay matalan kan split kan sana ku samaysan yahay mid kale haddii aad split ku sameeyo ugu yaraan dhowr video marka codkood isuma balance garaysno kulligood highlight ayaa saaraysaa ama highlight kitaa muus saas wada saartid haddii kuwa badan isku saarnayna ma samayn kartid waxaa samaynaysaa cilaankooda haddii layero badan isku kaa dul saaran cod badan waxaa samaynaysaa kan hore ayaa kili ku siinay controlka ayaad riixaysaa kulli markaas wada dooranaysaa kadibna right click ayaa leedahay kadib marka right click dhahdaa darta isku wada xiri kartaa laakiin waxaan tusaa high volume kulligood inuu isku level ka dhigo marka dhegeyso marka la soo bilaabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi noise-kan aan saaro removal tacaala wabarakaatuh dhammaan aqyaarta youtube aan salaamay casharkan wuxuu ku saabsan yahay sidaan u tijaabin lahayn codkeena Adobe Audition kaasoo isticmaalayno marka wuxuu sameeyey oo ujeedaa inuu codka dham kulligood isku si ka dhigay macnaha waxaa laga yaabaa meel inuu markaa mikrofoonka hadlaysina ka dheeraatay marna u soo dhawaatay markas sababtoo adiga mikrofoonka isticmaalaysa waxaa laga yaabaa inuu mar qaarkood yahay kuwan desktopka noocan mikrofoonka u dhow yahay mar qaarkood dhaweynaysa laakiin maaha midka highphoneka headphoneka ku xiranka madaxa waxaa laga yaabaa inaad ka dhaqaaqdid marka low haddaartidna sidaas kale medium iyo low sidaasaa u samaynaysaa marka volumekana volume levelka sidaas ayaa u isticmaali kartaa noise-kana sidaas ayaa u isticmaali kartaa macnaha waxay ku samaynaysaa noise-ka waa ugu muhiimsan tahay markaa ka saartid codkaaga wuxuu sameynaa inuu videoga quality yeesho sababtoo kan maxaa hadda video gooni ugu dhigay sababtoo waxaa ogaanaysaa videoga markaa waxaan dhab ka qaadid qof dhegeysan kara ma lahan videoga markaas waxaan dhab ka qaado lama abalay ma ahan dhegeyso macnaha qofkii adiga dareemaysid markaa videoga duubtid laakiin videoga waxaa keenaya noise-ka badanaa adiga ma awood inaad kulli ka nadiifisid laakiin xoogaa inaad ka yareysid sida codkaaga nadiif u noqdo hawadana aad loo maqlaynin marka waxaan umaleynaa wax badan aan fahmi doono qofkana bil'aadankana marka dambeysa waxbaa usoo ziyaada cilmiga marka insha allah bidna wixii adiga aqoon u leedahay haddii ay aqoon doontaana fadlan noo soo ziyaadi commentiga igu soo qor waxaa laga yaabaa mataqaana inaan ka faa'iidaysto insha allah bidna kariim adigana waxaa qofka ardayga cusubna waxaa laga yaabaa in casharkan computation studio ka duubo ka faa'iidaysto su-aasha rabaa inaan ka jawaab waxay tahay introga isticmaalayo videoga aan u isticmaalo introga caadiga ama endiga ha ahaado ama bilowga ha ahaado ama casharada kor oon soconayaan oo mataqaana qeybaha ku sharaxan yihiin ay tahay midda koowaad kulli waxaan isticmaalaa waa camtasia studio wax camtasia studio ka baxsan maana isticmaalin qof kastana su-aashaas waxaan aaminsanahay inuu fahmay laakiin dadka qaar waxuu maleeyaa inaa barnaamijyo kale isticmaalay introgaaga noocee waa inta may kulli waa camtasia studio sida casharkan aan u wado ayaa min bilaaw ilaa min dhammaad aan u keeni doona insha allah bina kariim backgroundkana aan isticmaalana waxa u samixay tahay badanaa dadka qaar waxay isticmaalaan wax la dhaho copyright qof video waxay badan sameeyey ayay rabaan in videoga ay kitay download YouTube geliyaan sababta loogahan wuxuu sameynaa video si kastoo qofkita kan inta looga u tiro kama tiri karo kan wax kama bedeli karo kan waa lagu saari karo kan wax kama bedeli karo sababta videoga halku dhigiis dhex bartanka waa macnaha macluumaad ma saari karo markay ku adag tahay mid kale nasiixada aan ku darsanaa kale waxay tahay waanada marka video duubaysay fadlan ma haddana waa kula hadlaa laakiin muuskayga ma dhaqaaqay gacanta waa ka qaadanaya laakiin muuskaaga inaad dhaqdhaqaajiso mar meel u dhaqaajiso qofkii wax ardayga ama qofkii wax ka faa'iidi lahayba muusku ilaalin sababta aad wax laga yaabaa muuskaaga midda kale saddex kalena desktopkaaga iconada dhan ka nadiifi sababtoo markaa wax rabtid inaad qof u faa'iidaysid iconada saarna waa qalad in dadka adiga wax u faa'iidaynaysid iconadaadana lagu mashquulo macnaha qofku maanta dhan wuxuu fiirina iconka u saaran barnaamijka u jiro may kulli ka nadiifi insha Allah bina kariim videogan screenkan saan u sameeyay backgroundkana bina kariim waxaan ku soo qaadi doonaa channelka kale ee Axmed Shafiic sababtoo ah photoshopka dhan oo bilaawnayn inta waxa lagu bilaawaa qayb ardayda kaasna waxyaabihii su'aalaha xagga looga jawaabi doonaa إن شاء الله بإذن الله إنك فايسون دون رجعنا كرر لأذن هذا الكلام كبدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا